والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي baan mahadle marka hore runtii waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay amaan aad ugu mahadnaqaynaa deeq bixiyaha halka Holland soo marisay deeqdani hay'adda FNG iyo CARE iyo hay'adaha isku kaashadeen mashruuca dan wadaag runtii oo dhawaan bilaabmay oo muddo sanad ka yar socday runtii oo gaar ahaan lagu tijaabinayo arinta disasterka ama maareynta aafooyinka dabiiciga lagu tijaabinayo labada degmo ugu horeysay dalka degmada Hargeysa iyo degmada Burco in maanta halkan ka gudoono laba booyadood oo kamid ah in lagu taakuleeyo dadka maartay abaartu saameysay ee barnaamijka kale loo hayo runtii aad iyo aad hay'adda Algasal iyo dhammaan cid ka soo shaqeysay iyo labada maayar oo runtii iyaga u dhowdo qayb weyn ka qaatay dhammaantood aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxaan ugu oday reer weyn ducaan baa saaranay faahfaahintii mashruuca aad baa madaxdii goorisa ayaa faahfaahisay waxaan ugu duceynayaa dhammaantood inay hawshaasi halka ka sii wadaan dowladahan laba dowlad degmeel la siiyay hawshana in daryeel wanaagsan u sameeyaan waxa ku wareejina maanta in daryeel wanaagsan u sameeyaan laba waqti walba way jirtaa arinta kollaa barbay aynu ka shaqeynaa oo dadka biyaha loogu dhaamin kolka barwaaqadana in dhiraynta magaalooyinka iyo maartay ay ka shaqeeyaan waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin ka hortagga maartay ama u diyaargarowga maareyn aafooyinka dabiiciga in dhir badan laga sameeyo magaalooyinka laga sameeyo in maartay maxay ahayd kolka dhibaato jirtana dadka la waraabiyo marka runtii waxaan ku boorinayaa laba degmo runtii laba maayir waxay garab joogeen maayirkii degmada Burco maayirka hawl ku maqan isaga gudoomi doona labada degmaba runtii iyagana waxaan ku dhiirinayaa in hawshaas inay wax ku faraaqdeegaan hantida mugale ee loo dhiib maanta lagu soo wareejiyo qolada mashruuca waddan waxaan ka rajeynayaa sida inta ka badan ay keenaan mashruucuna sidii loogu talagalay insha Allah inuu socoto sida gudoomiye Faysal sheegana dhibaatooyinka dhacayana in walba halkiisa xilka iyo mas'uuliyadda ku qaado dowladda hoosanaya dowladda dhaxanahay oo waxna waa saaran marka dabka qudhiisdu waxay ka mid tahay maareynta aafooyinka dabiiciga waxyaabaha degdeg u yimaada qayb bay ka qaadeen qudhoodu oo ku baktiinta iyo biyo dhaaminta waxay kabayaan qaybtii dabdamiska iyo maanta ugu daljirana qaybtii dabdamiska kabayaan biyihii u dhaaminayaan shaqooyin fara badan oo degmadu u baahan tahay ay runtii qabanayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan cid kastoo ka soo shaqeysa hawshani